suuragal maaha in aad si fudud u marto jidkan isku xidha gobolada galbeedka Somaliland maaha inay jirto cabsi iyo cid si gaar ah walwal looga qabo inay ku dhibaatayso balse waxa jira wada la'aan baan oo saameyn ku yeelatay dirawaliinta gaadiidka jid xumada jirta darteed ayaa ku hoga tusaaleynaya humaaga fogaan dheer marka aad taagan tahay jidka isku xidha gobolada Awdal iyo Sal sawir mala awaala oo muujinaya in jidkani leeyahay meel la haweysan karo in la maro balse waxba kama jiraan markaad gaadho meeshii ka fogeyd ee jidkani hagaagsani kaaga muuqanayay jidkani waxa uu marin u yahay gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ee bagaashka soo qaada geeyana dalalka ay Somaliland jaarka la tahay ee Djibouti iyo Ethiopia kuwaasi oo ku kala baydha magaalo xuduudeedka Qulujeed oo kuwana ay tagaan Ethiopia halka kuwa kalena ay qabtaan dalka Djibouti gaadiidkan ayaa laga soo raraa magaalooyinka Boorama iyo Togojaale balse ma haystaan jid u sahlaya in ay ku sii nagaadaan jidka isku xidha gobolada Awdal iyo Sal iyo dalalka ay mujaarka nahay ee Ethiopia iyo Djibouti waxa uu u baahan yahay gurmad degdeg ah iyo in la dhiso jidkani si uu qayb uga qaato kobaca dhaqaale ee ganacsatada jidkani marinka u yahay iyo bulshooyinka jidkani faa'iidada dhaqaale ka hela ee ku haysta mahiradaha cuntooyinka qaar kamida wadayaasha gaadiidka oo la hadlay isha kamarada waxa ay sheegeen in si maalinle ah lacag looga qaado balse lacagtaasi oo ay ka qaado hay'adda asarda sida ay sheegeen aan waxba loogu qabanin jidkana uu yahay mid ay habeen iyo maalinba ka maraan rafaad iyo silic